kaydka raashinka qaranka ayaa wejigii labaad soo gaarsiisay deegaamo ka tirsan gobolka Sool. Deeqdan raashinka oo ah 1,000 qoys kana faa'iideysanayaan 6,000 oo qof ayaa waxa isagu hogaaminayay mas'uul sare oo ka tirsan hay'adda afooyinka qaranka. Kaydka raashinka Xamse Qurbaani waxaana mas'uulku ka hadlay sida ay xukuumaddu dadaalka dheer ugu bixisay inay dadka colaaduhu ay ka soo gaareen magaalada Laascaanood iyo gobolka Sool sida degdeg ah ee ay xukuumaddu ugu gurmatay isla markaana ay ula dareen tahay bulshadeeda. waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa mas'uuliyiinta iyo bulshada deegaanka Guumeys sida diiran ay noogu soo dhaweeyeen. waxaan hay'adahan anagoo ah hay'adda u diyaar garowga afooyinka kaydka raashinka qaranka uu hormoodka noogu yahay mudane Faysal Ali Sheekh Maxamed iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi inagoo ku jirna bishii barakeysneed ee Ramadaan waliba 15kii dambe deegaanka Guumeys xukuumad ahaan waxaanu soo gaarsiinay 300 oo qoys oo ugu talagalnay in bisha barakeysan ee Ramadaan ay ka faa'iideystaan waana markii labaad ee si joogto ah u soo gaarsiino waxaanu ku wareejin doonaa mas'uuliyiinta deegaanka iyadoo hadda aan u qaybin doono 300 oo qoys oo degan deegaanka Guumeys kuwaasi oo kamid ah bulshadii ka soo baxay magaalada Laascaanood. xukuumad ahaanna waxa naga go'an mar walba oo diyaar u nahay inaanu si joogto ah uga warhayno bulshada deegaanada kala duwan ee gobolka Sool hoos yimaada. ka xukuumad ahaanna waxaanu rajaynaynaa in si dhaqso ah haddana u soo jawaabi doono oo soo gaarsiin doono deegaanadan. gudoomiyaha ayaan ku wareejin doonaa 300 oo qoys oo raashin oo dhammaystiran. qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka deegaanka Guumeys ayaa iyaguna ka hadlay kana mahad celiyay. halkan waxaa nagu soo gaaray raashin nagfor na soo gaarsiisay awal horena na soo gaaray maantana noo degaya 300 oo qoys ahna waxaan kuulo markii labaad oo noo yimaado waxaan u sheegaynaa caalamka iyo hay'adaha dawliga kuwa internationalka waxaan leenahay nabadgelyo hay'ad kasto dadkii gobolka soo barakacay kuwii hore deganaa barakicii hore mid walba aan leenahay nabadgelyo kusoo hirtaan leenahay mid walba hay'ad kasta raashinka noo yimi ee ay noo keeneen hay'aduhu waana qaadan doonaa insha Allah hadeerna waa baahi ayaa meesha ka jirta raashinkaas waanu qaadanay waanuna gudbiyay. waxaan halkan aan aad uga salaamayaa hay'adda kaydka qaranka raashinkan 1,000 qoys ee 3 magaalo soo gaarsiisay Tuulo Samakaab iyo Yagoor iyo Guumeys waanu soo dhaweynaynaa waana ka gudoonay. sidaan dareemayo meelo fara badan oo gobolka Sool ka mid ah iyo degmooyinka meel walbana waa la gaarsiinayaa. waa kuwaas raashimada waa raran yihiin waana soo socdaan. nin dhargay cidina dadku wuxuu weydiin mayso. dadkana waa dad qaxoonti ah waa dad masaakiina hooy ma haystaan quudin ma haystaan. nin dhargay oo dadka dhiigiisa ku koraya cid wuxuu weydiinaysaa ma jirto. nin walbana waa loo geenayaa gobolka Sool meesha ka tirsanta cid Ilaahay wuxuu ka keenay waa loo geenayaa qof walba taa ku biyo cad. hadeerna wixii shuba ma dhagaxanba ma biya shuba wixii dadkan waa dadkii wax u baahan oo masaakiinta weeye. raashinkii noo yimi waanu soo dhaweynay waanuna uga mahad celinaynaa ciddii soo bixisay taakulada la soo gaadhay haddaanu nahay odayaashii Guumeys. deeqdan raashinka ee la soo gaarsiiyay magaalada Samakaab goobtaan joogna waxa weeye Samakaab waxa halka kan nagu yimi hay'adda maxaan Nadford oo noo keentay raashin 300 oo qoys ahna noocyadiisa kala duwan. waana markii labaad ee ay noo keenaan raashinka isaga ah. waxaanu ka gudoonay raashinka si wanaagsan oo muuqaal iyo waxtar leh ayaan uga gudoonay. waanuna ka gudoonay waana ka gudoomaynaa wixii dambe naloo keenana waana ka sugaynaa. dhammaan maxaan idhaahdaa hay'adaha iyo maxaan idhaahdaa hay'adda Nadford dhammaantood waana ku mahadsan yihiin waana u mahad celinaynaa insha Allah. sida darteed waxaanu kaloo aan rajaynaynaa in si degdega dadka kan deegaankan soo barakacay dhinaca galbeed ee Laascaanood si degdega waxtar degdega loola soo gaaro waayo waxa haysata hoy la'aan biyo la'aan cunto la'aan
maxaan idhaahdayey wax kasta oo ma garanaysaa agabka loo baahan yahay ah marka waxaanu leenahay